soonku dhibaatada ku yahay kuwa ay ku dhacaan oo dhakhaatiirtu cadeeyaan qofkan soonku dhibayana ayaguna ruqsadaas oo kale ay haystaan maadaama aan la rajaynaynin in cudurkaas qofku uu ka bogsado يعني يجونا واصلات وي ولو بني شيخ ديدا عبد حسن أو كميدا علماء وين قبل كني أوضل يا صلاة جماعة مسجد الشيخ مكاهيل وحى وقطبة جماعة قصوا قاطعي شبرك سنة رمضان يفوت إنه قصوا هيسا أي وحيا بها جبية صونك الشيخ مرتا يوم مرك لك هذا أي وحى ويري وعبسة صونك هذا صوتي الماني وإحنا قناي أما كورك كوتشر هالنقطة أما كاي شخصين سهر نقطة أما النفط هذا هو بقطه inay yani wax weeyaan awoodi weydo xaaladaas waxay la xukun noqonayaan qofkii mariidka ahaa daweetana way iska cunayaan maalmaha kalena way qalaynayaan waa mas'ala runtii culimadu ay aqwaal badan ku leeyihiin qowlka ugu raajaxsan biidin ilaahi taala wuxuu noqonayaa inay qaleeyaan culimada qaarkood oo leh waxba laguma lehe fidyo una bixiyaan sidii odaygii gaboobay iyo islaantii daada ahayd iyagana fidyo baa lagu leeyahay qalana laguma laha هدي الله كله يهاي وحكرنا لكم لا سين وقصنا هاي وحفوض ينقصوا هايسا بشي بركة سنيد رمضان إن شاء الله تعالى وحين مانتا حصدنا أحكام تصونك ما دام أي مهم تهاي إنه قف كسيو قادو حيابها اللوغة باهي هاي قف صايم كا حيابها صونك كجمينية waxyaabaha soonku ugu xidhmayo iyo waxyaabaha soonka ka nuqsaaminay marka runtii daayintaynu ka hadli lahayn Ramadaan dhaxdeeda waxa aboon inuu hadda ka sii hadallo marka lama wada gaari kara laakiin waxaynu xusi doonaa 8 qodob oo Ramadaanta ku saabsan inta badanna aayaadka Quraanka ay ku soo arooray iyo xadiista rasuulkuba ay in badan waxyaabaha sharci la wadaago ay ka mid tahay usuuludiin oo arimaha dee la xiriira aqeedada sida Allah in la rumeeyo rususha la rumeeyo malaa'ikta la rumeeyo wa usulul iimaan ama usulul aqeeda ama usulul diin usulul ibaadaat ba iyaguna jira oo ay kamid yihiin salaada iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo arimahaas marka waxa kamid yahay buu leeyahay Allah subhanahu wa ta'ala soonku oo la idinku faral yeelay sidii ummadii idinka horeeyayba loogu faral yeelay جددنا ومحي لعلكم تتقون سيد الله وعبسطان سبحانه وتعالى إخواني في الله مدى مسلمين تا صونك وحالا غفر لي لسنة كلابات هجرية ده وعنو كمد يهي أركانتا إسلامك شنطة والنبي عليه الصلاة والسلام يري بني الإسلام على 5 إسلامك وحالا قد الصي شنا رمود بيدي النبي عليه الصلاة والسلام وحواجبك يهي قفك لغاها له hadduu rag yahay 5 arrimood hadduu dumar yahayna 6 arrimood kow waa inuu yahay qof muslima waa inuu yahay qof garaadkiisu jiro oo yaani waxa weeyaan aan waalayn waa inuu yahay qof qaangaara waa inuu yahay qof caafimaad qaba waa inuu yahay qof degan oo aan musaafir ahayn shanta markuu qofku dhamaysto soonku waajib ku noqonayaa dumarkana waa shantaas oo lagu daray inay ka maran tahay dhiigii caadada ama dhiigii dhalmada ikhwaani fillah soonku wuxuu ku waajibaa marka 2 arrimood midood yaani waxa weey la helo in bishii Ramadaan la arko iyo in صدقني بشي شعبان لدميستو سنبينا شجع عليه الصلاة والسلام وعد كسرتان أركتيديس وعد كفرتان أركتي الدليل إذا كقريرة صدقني شعبان دميستو النبي عليه الصلاة والسلام markaynagu de waxaynu ku soomeynaa inaynu bisha aragno iyo inay sodonkii Shacbaan dhama hadaynu bisha aragno iyadoo Shacbaan dhamaanin oo 29 maraysa daynu aragno waynu soomeynaa sababtoo ah nabiga ay suumu liruyati sidoo kale hadii Shacbaan dhamaatayna de sabab loo sii joogo loo yiraahdo ma aan arag ayana ma jirto ya arkaya marka hadduu qof muslimiinta kamid arko waa lagu soomayaa Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma ayaa wuxuu leeyahay tara an-nasu al-hilal
dadkii baa waxay raadiyeen bishii oo macnaha waxa weeye waa la isu tilmaamay qof walba wuxuu yidhi bal halkaa dabeetana aniga arkay buu waxaanu sheegay buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam fasaama wa amara an-naasa bisiyaamihi nabigu uu soomay waxaanu amray dadkii muslimiinta ahaa inay soomaan walidaalika baa nabigu muxuu calayhi salaatu wasalaam fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfath wala yaskhab yani qofku markuu ku jiro maalintiisa soonka ee uu sooman yahay qofkaas yaanu la imanin wax la yiraahdo rafath waa shukaans waxa la wixii shaawada kicinaya ayaa mamnuuca weey inaad qof dumar taabato inaad yani wax weey haasawdo inaad waxyaabo dareenkaaga kicinaya samayso inaad indhaha dumarka la raacdo awraadko waxyaabahaas oo dhan ay iska ilaaliyo buu nabigu calayhi salaatu wasalaam fursadna waxa loo siiyay inay fidyo bixiyaan oo halkii maalintii ay ka soomi lahaayeen inay qof miskiina uun ay quudiyaan weeye الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا ساسل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يعني وحوي يعني يجنا ويسكعنيان ويسكعبيان وحكر ابن مجرى وحيد صنك كور أي كسبنايان لكن مالك استا هل مسكين أي قوذنيان وعلم إذا قفك وكل حنونك سواء دجبوا بجارين حنون هذا مزمن كلا يراضو